nacaska maalinta lagu saaro wuxuu ku ilowsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laanguruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysa baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laandheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tusi leylata alcursi mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa deedna feeraha qofka ayaa sidaa isku dhaafa haddii qabriga isku yimaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man huwa sacad waa ninkii geeridiisa maalintuu adduunyada ka intiqaalay carshiga raxmaanku u gariiray faraxan liquduumihi imaadku adduunyada ka tegey bixidda sacad uu maalintii adduunyada uu ka baxay ayaa ilaahay jalla wacalaa carshigiisa raxmaanka u dhaqaaqay farxad daraaddeed jibriil baa soo dhaadhaco nebiga u sheegay oo yidhi nin asxaabtaada ka mid ah ayaa go'ay oo ahlu samuhna ay ku bishaaraysanayaan imaadku adduunyadii ka yimiday markaa buu nebigu sara kuxuu yidhi yaa jibriil sacad binu mucaad baan u malayn buuhi inuu go'ay deedna uu soo degdegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saxaabada rasuulka kabihii ay gashanaayeen ay ka go'een markaasay nebiga soo gaadheen markaasay dhaha yaa rasuul allah socodka waa nagu daalisee markaa buu nebigu yidhi haa waa nigu daaliyey sidii xantalo malaa'igtu ay ugu maydhay inay sacadna hortay u maydho ayaan ka cabsoonayo inaan sacad gacantayda ku maydhan u soo degdegayay buu rasuulku yidhi waxauna jibriil ii sheegay buu yidhi carshiga raxmaanku faraxan isagoo ku faraxsan imaadka sacadu adduunyadii ka yimiday inuu carshiga raxmaanku u gariiray ayuu jibriil ii sheegay buu rasuulku yidhi markii janaasadii la soo saaray la qaaday bay munaafiqiintu yidhaahdeen maydkan fududa markaasuu nebigu yidhi ha odhanina sidaa war ma haysaan ininkuye 70,000 oo malag ayaa maanta arlada u soo daadegay maanta ka horna malaa'igtaasi arlada maynan iman sacad binu mucaad janaasadiisa ka soo qayb galan oo weynina sidaan buu rasuulku yidhi markii qabriga la dhigana nebigu wuxuu leeyahay qabriga isku imaadkiisa haddii shaksi ka badbaadi lahaa sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi wadammatu lqabri tunsi leylata alcursi habeenka u horraysay zafaafka waa habeen taariikhda ku qoran weeyaan habeenka u horraysay nin kastoo dhallinyaraha uu gabadhiisa zawjadiisa xalaasha uu la aqalgale iskugu horreeyeen habeenkaa waa habeen taariikhiya weeyaan lama iloobo laakiin isku imaadka qabrigu isku imanaya marka u horraysa lagu dhigo habeenkaasaa lagu halmaamaa buuhi ninka shaacirku aaway shucuurta ayaa dareenkaasi maanta وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين markuu qabuuraha dul yimaado ilmadu garhkiisa qoyn jirtay ilaa laabtiisa waxaa la yidhi cusmaan jannada iyo naarta ayaa laga sheekeeyaa ma oydida qabriga markaad dul timaadda maxaa loo oydaa baa lagu yidhi waxa uu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi qabrigu waa aqalka aqallada adduunyada ugu dambeeya weeyaan waana aqalka aqallada aakhira ugu horreeya halkaa ninka ku nabadgalana nabadgelyadii runtaa u dambaysa buu rasuulku yidhi halkaa ninka lagu cadaabana cadaabkii weynaa baa u dambeeya buu rasuulku yidhi عثمان رضي الله عنه وارضاه وصحابي جليل كهاي بيد إلهي كو امتحامي لو شيء إلا امتحامي ولي من اسك صبري عجيب beertii nebigu uu ku jiray buu albaabka loo garaacay nebiga Abu Musa al-Ash'ari baa irid taagnaa markaasuu nebigu u sheegay yaa rasuul albaabka waxa garaacay Abu Bakar markaasuu nebigu soo gal ka dhaaf Abu Bakar jannada ugu bishaaree haddana Abu Musa halkii buu fadhiistay haddana waa la garaacay waayo waa Umar waa ku soo idan qaadiye u kaadi yaa rasuul Umar baa albaabka jooga soo gal ka jannada ugu bishaaree haddana waa la garaacay yaa rasuul waayo waa Usmaan baa albaabka taagan u bishaaree janno balaayaa siibi doontana u bishaaree buu rasuulku yiri markii loo sheegay leeyahay nabigu jannana uu kugu bishaareynaya adduunyadana balaayo iyo masiibo kugu dhici doonta wuxuu ku jawaabay Allahu musta'an
safka hore ku wada tukataan ama mid meelaha iska barjeeyo qaraabadiina hadduu laba jeer ku yidhaahdo warniyo manaan baa kugu arkado baabur kula qallima ka waran waxaad odhan waraadu noloshidaad ka xuntay daai karqabaad hee soo ma waad ka raacabsan waa mid meelaha iska barjeeyo qaafila oo masaajidada iyo diintii ilaahay cilaaqa la lahayn hadduu laba jeer riixun kuu sheegaad saa u nixo qabsada u qarqariyo ruuxbaba kuu dhacaya محمد عليه الصلاة والسلام صادق والمصدوق با u sheegaya inuu balaaya adduunyada ku asiibi doonto waxa uu leeyahay hadana Allahu al-musta'an وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ونبي دح فديو أي فاطمة نبي u soo gashay way ag fadhiisatay way dhunkatay ودنكدي النبي عليه الصلاة والسلام inantiisii markaasuu kaalay Faaduma arrin baa ku sheegay dhagtu wax ugu sheegay waxay tiri waan lilmeeyay lilma ka daadatay Faaduma Aisha arkaysa al mu'minin radiyallahu anha markaasuu nabigu hadana kaalay Faaduma arrin kala ku sheegay dhagtu wax kala ugu sheegay isla markiiba Faaduma hadana way qosashay ee farxaday Aisha maalin dambe u yeedhay oo tiri arrintii maalintaadii aabahayn dhaxmartay marna ku oyday marna aad ku farxaday ii sheeg markaa bay tiri hooyo ku sheegi maayo sirtaas aniga iyo nabiga naga dhaxayso kuma sheegayo walaakin Aisha may halmaamine markii nabigu kaleey salaatu wasalaam adduunyada uu ka intiqaalay ayay maalin u yeedhay ka tiri maadaama nabiga adduunyada ka intiqaalay sirtii adii nabiga naga dhaxaysa maanta inaad sheegto way ku banaantay ii sheeg markaas ay tiri hadda waa ku sheegaya arrin sirta u horeysay kalilmeeyo waxay hay waxa uu ii sheegay geeridiisu ii sheegay inay dhowdahay dadna waan ooyay beetin oo inta adigu arkayseen sirta labaad uu ii sheegay ku farxay waxay ahayd wuxuu igu yiri hooyin Faaduma ay aamus miyaanad raalli ku ahayn haweenka ummadda nabi maxamed ee jannada galaya gabadha ugu darajo sareysa ugu barwaaqaysan in ilaahay ka dhigay miyaanad raalli ka ahayn raalli baan ahay tiri riwaayad kalena wuxuu nabigu ku yiri haween aamus Faaduma ehelkayga qofka dhimashada igu soo xigay oo adiga aamus igu yiri dadna waa farxay bay tiri qof dhimashadiisa loo sheego farxaya ka warramay intuu diyaar garoobo qofkaas هشام بن عبد الملك ayaa u yeedhay Abu Hazim Yazid al-Raqashi wuxuu su'aal baan ku weydiin buu sheekh ما لنا نكره الموت هذا نكو بقرة عنها محان دمشق وكرهنا بوي دمشق وكعب صناي زمن كاس وتابع تابعينتي وقرونتي هرويا مدحض أمبا نرش أدوية الجعلية عامنا مسلمين تآخرة ديني تقابل جعلايين ما أنت الزمن كأننا فقير كأن قريقي سعاوة وحباء عن أولين إنه آخرتك الديار مويا فقير حتى موت اليوم عن هيسن أديل على آخرة ديار موتى ما يبغون إنتين هالكافر المساجد كجوكت هذه هالك عند ملك وسلطة كملك وإذا إنتين ناس إلى هاي رالي بنيجا نقضي الباب دي جنة نوالله نفري أيها وديار أي مكذا إنه قال أديل على كورم تحويري أبو حازم بايدي وعد دمشق وكره هيسا أنا أقول جوابي هاي الدوية أياد عمرتين واد قرحسين آخرين واد اسك خربتين واد بابئسين مركا دارت آد قرحستين عمرتين إن أتكتكتان دار أنا وحبي نيجا دسنين ونيجا بابأسان ونيجا هاللوسن إن أدو قرتان دي أقولاني ميسان بفوي قرمي آخرة جعلانا يان قرمي لكل قيلة جعلانا يان وأمرك دتك أعمالك هو الرئيس وأمرك السهي أي كه الرئيس أبو دربة ورجلي صدع بان الدنيا وقول جعلها دتكون ويكرهان دمشق هي فقرقة هي بوكتانتا صدع هذا دتكون ويدي بصداني يقولون جعلها يبو يدي مع الله جعش هاي باللقو يدو وحنا جعلها فقرقة وتواضع بودي تواضع باللقاها لا فقرقة حنونك وحنا جعلها ودم داف كلما قفك مؤمنك وحنون صدب الدم باللقا دافا دمشق وحنا جعلها ما تقرن يسابو يدي ما ينوشك
la kulanka rabbigay baan jecelahay buu laana dadkaasi waxbay qadimteen iyagu maalintuu dhimanaya Abu Dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda la yidhaa xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sakaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi maxaad loo oyeysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotona kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba aniga i aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo maskiidka dhex fadhin oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa iniga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaacad muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalintaa aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doonta iigu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkiiba boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkiiba boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaloo dhan way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegay baa aaskayga ka qayb geli doontee halkaa u baxoo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sakaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax kala socday eegta haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saarta haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii baa markaa sidaa u tidhi baa la dhisi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sal allahu alay wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay yidhahdeen nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen ee dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta mu'miniin baa tiinoo nebiga ina sii sheegay buu yidhi xadiiskii nebigu markiiba u bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oy u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta cidlaa ku dhimanaya nebigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaad ee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan iigu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan iigu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayow raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inigu jiro dharka uu sitaa aniga kafan ha iga dhigina buuhi kafan ugama barin dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jidhkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadka uu aakhiro la tegaayo inuu ka boorooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen marayna waxaan ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cuntay soomaali gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanayaan gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adigay ilaa oo shaawadaadae taatiirsaa shaawadaada way saamayn umadkaaga xaaraanta taqwaduna awlaadday iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa
لذلك نبقرة قرنتي هراء أي قصر جيسا سونق للسوق والولسن حاسك سيبا كتر محاكو علي بقر مسلم أبوها مجاهدة دولته قد صنابها بلاد الهند والسند markaas uu yiri inankeeni yaan ciidanka u dhiibay ee mujaahidka aha ayaa la ii soo sheegay in la soo jabiyo laga soo adkaaday markaas ay tirada wada gaadhsiinay u nasteexaynaya Muuse iyo Haaruun labadaas ducaad ahayd baa leeyahay lidalika Muuse alayhi salaam arintii markii adkaatay wuxuu yiri dhageysta ma asaad moodaysan arrin qala kallah inna ma'iya rabbi sayahdin محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بركة أبو بكر النبي قبضت كجلان محمد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله بهذا ده إن الله معنا حديث كنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما موسى وحيري معي أنا قار وحي لجرى إلهي قار بإلهي لجرى ولكن محمد وحليه هو الولين هم مرقان أبو بكر إلهي بمعنا لبدن أبو بكر صديق رضي الله عنه وهي النبي يقول للصعداء نبي يقول للددالية نبي يقول للجولينية نبي يقول كحنجري سوق مقالة مكة موسم الحج تبسنوا عربت مركز سوى حجيان أي النبي قول نجرى أبو بكر قريش هدينا مغلي ويدي عربتها حاج كتمد اللقيا الرسالة إننا نلف معنى إكحيو إيجيبي ورنجري مرقاس أبو بكر هرس عنجري ورنجري ورسول الله صدره هذا القصة دقيست ورنجري مرقاب النبي قول نجري من يويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة أي يسود وينيا أي دلكيس يجيسنيا أي يقرقاريا أي عدو يقدفاعيا أي شغال الإلهي يسودي بي يقول قرقاريا أو جنة يقول بلغ هذا عنقنا 10 سنوات أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق دقاله وهيستور دموع بحي النبي عليه الصلاة والسلام حتى في بعض الروايات جبريل باوي من النبي وعرق أبو بكر وقميص كيسو كركرملية ومعي يا محمد صاحبك أبو بكر درقيسي وقوقع يا جبريل أبو بكر دقاله سيودن انت أنا مكلف ورنكهر أيوة أنا قدرات كبحي بني حتى مالين عمر يا ابو بكر باس كدعay مدينه markii la yimid dawladdu balaarat markaas nabiga loo sheegay markaa uu nabigu xanaaqay manbarku nabigu ka kaco wuxuu wariyada dhageysta nin kasto inikay naga mida diinta islaamka maalintan inagu yeeray waad ka doogsateen waad ka soo fikireyseen waan ka soo fikiri baad igu tiraadeen Abu Bakar maalintan ku yiri ilaahay baa soo diro rasuul baanahay run baad sheegtay biigay aad run baad sheegtay markaas lacagtiisii سيدنا أبو بكر حوليس هو استعماله أي أنا أقول هو استعماله دقاله سيمو إلى السبيب رسولك يدي يا أبو بكر ما يدين يسا مالك قدك عربي أرينا يسينا قدك أنقلينا يسقى صاحب إلهها قيامهنا حوت كدوش يدين أبو بكر يسقى إلى صاحبه لذلك موسى عليه السلام حيري أنا ربي جيبا معي قاع خاص معي يدعس لأن أبو بكر صديقنا النبي محيري محاضر ملينا أبو بكر وإننا أركان إسكداية لبا إلى حسد حين يأرك كرا وتربية نبي موسى بدل الله كلا دلاعيي ولا مريي نبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى مدينة النبي قل له جاي موسى بدل الله دلاعيي والشباب كل فعل جاي والله كبد هذه الريب بن إسرائيل طريقة إسلام طريقة الريب بن إسرائيل كبد هذين أيا فرعون يعيدك يصير له بابيه جبيه وجيبه النبي محمد ما يقول له جاي رسول كن قال لي يريدي قد بو قلي رات كسيب الله دبا قري 29 يوما بو نبي يقول له جاي نبي موسى بدل الله دلاعي نبي محمد ولا له جاي سي فرق يودع يا معي إلهي مونا كرين إنه نبي كدح قادم مكة ومدينة جيو نبي مكة جوجا أيا هل كي وجيفي إن الله قاد نبي قال لك مسجد الأقصى من مسجد الأقصى إلى سماء الدنيا
من سماء الدنيا إلى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السابعة إلى سدرة المنتهى هل كي لنا نلك وكهي وولد ديرا أي نبي الله سوء عليه maalintii hijradana maxaa nabiga ilaahay u daalinayay markaas xikmadda ku jirta maxay tahay zaadul mi'aad buu kaga hadlay ibn qayyim al-jawzi rahimahullah xikmadda ku jirta hijrada ahkaam baa ummadda u soo degtay ummadda lagu tarbiyadeynayay asbaabta inaynan ka tagin muslimiintu ayaa la barayaa asbaabta in la qaato asbaabta dadka maxaa nabiga gelinayay asbaabta inay ummaddu qaadataa la doonayaa asbaabta qaado laakiin asbaabta hadala saaran asbaabta oo la qaato waa sunnadii nabiga iqtidaa'an binnabiy loo qaataa waa shariicada islaamka ilaahay yidhi nacam waa diinta ilaahay naga doon inaan qaadano asbaabta oo la ictimaadaana ilaahay ma ogolo waa gaalnimo wanda muslimiin badan waxay ictimaadayaan asbaab bila asbaab lama noolaan karo ku odhan تصلي رسول ما نقول دري يا هذا لا دري صبر ده كعينه صلاة تكبيرة الإحرام بكبل عمتها كي كنا ماتا تسليم سمع تسليم دي ولا قاعد نهدو قفك تكني ما ممكن هدو كذا وكعكورة وكبح صلاة يا بطلت صلاته فإن شاء الله مجالس دينية أدبيات أدبت الله إلى عليه مجالس تنير تقاربوا بكبل عبتها وأقول لما سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله وصبرنا إن شاء الله إن شاء الله هذا وفدينا سمع بركات يقول هذا شيخ ونقص وقابل هذا أنا وصو قابل المركز لأن خرج مسنا سين الله درت بنوه الله يا يقول الله درت بنوه سنة سنة وقول لك وكلام عاشنا سمع الله إن بركة ما شاء الله وين جنب وقت آخر رسول جعش يساو فردان الجالس عني قد كو قال النبي أبو بكر بقد كو داعي يا رسول الله كذا أنا كذا جاي بركة سكية كفري النبي صلى الله عليه وسلم عجيب واس هجرا دتك النبي قال الله سعدنا الدرجة إلى هاي كسينا يا قرآن كوا مالين دتك دبوا عنا إلى هاي بالليل قرقاري الله أنت النبي قو قرقاري وايين أبو بكرنا إلى هاي جل وعلا سجار هو أمانة مالين تاس هذا قد كيف كبح رسول وين لقيين سراقة بن مالك نكل ليدا أي رات في النبي صوبري لأن النبي يجيب صوب قال لي أنت الله السعودي مر أبو بكر النبي حق ضبو كمرة مر حق هرو كمرة مر حق ضبو كمرة مر حق هرو كمرة مر قابو النبي أبو بكر مر معادي يقول رسا مر معادي قدم بيسا يا رسول الله حق ضبو مركا كاقا عبصدنا وان كادم بيا وحين على عدو النبي حق ضبو كاقا إيمانا يا انتي نبي وحي الليل أذيك هورتا هواحكو يا ليان حق هورا مركا كاقا عبصدنا وكاهر مرا مرقاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر والله يا بي لأن السدي أي السعودين أي نيك سراقة بن مالك ليدا أي سوق قال النبي يا أبو بكر بالله وأن الله بلغ قال بقول حلال إمسالات عارف سالات بقول حلال مر علي مركو أركب برقامي سيفتي بقول كساري أبو بكر بير يا رسول الله ولا نسوق قاري مرقاب النبي يقول عبسنا أبو بكر وإلهي بمعنيه اللهم ادفنيهم بما شئت اللهم ادفنا بما شئت عدوك أن الصوها ليلي سدا عدوك أبدون طيلاه ونقاق قبب رسولك دا بدي وفوشنا فرسك سيبا دولكو خبطيبا لنك مركبا مركز قيلي محمدو ساسو صويق النبي وانقون دبدن بنيقدب إيمان مايا إيقا سيدا مركز إله يبري إله كسيدا فرسك مركبا لقيب الله صوابحي وأن بقول هلادو قيل الله بلن قاري بقول الله كرزر كسو قاري هذا لو كسو دبسي داي فرسي لأن مركز النبي الله مع الإساقة قبض نلو مع الإساقة قبض إلا إساقة بدلكو قبطي بالي إلا لويس بدلكو قلي مركز النبي الصوك هلا نقضي مركز هديتو لنكي وحويري دبدن بهديتو لك هكذا دبي من مايو عدوك يقدم بينا وانوعين وانورنا يا طريقا عندما مرين قرت هذا قيل يجيبها داقية على مبنى قصيرة واحد وتكسي قادو
markaa buu nebigu yidhi may uma baahni geelaagee keen buu yidhi waxaa kuu qora waxbaa kuu qoraya soo adduunye ma doonaysa sow aniga waxaad ii daba ordaysa adduunye jacaylkaama haa keena waxbaa kuu qorayaaye saan buu markaa u soo saaray berigaa saan baa wax lagu qoran jiray wuxuu u qoray nebigu baa la yidhi siwaaraya kisra boqorka kisra carshiga markuu dul fadhiisto kursigiisa boqortooyada gacmo waxa uu lahaa dahab oo halkan yaalla gacmo dahaba labadiisa gacmood buu sidaa markaa u dhex gelinayay xarraga iyo kibir labadaa gacmooduu boqorkaa leeyahay dahabka suraaqata binu maalik baan u qoray buu rasuulku yidhi deedna uu iska socday rasuulku ilaahu dhulka ka sii daa la sii daayay uu iska noqday khalaas saantii buu duubduubtay halkaa buu gashaday haddee toole cajiib raggaasi carabtu ma og tahay madiinu iska makuu iska yimiday quraysh buu ku yidhi war ma arag anu maxamed ma arag waan waaye idaaya madiinuu yimid ee u islaamay ninkii wuxuu bilaabay safaradii nebigu galay o dhan inuu la baxo jihaadka haddee toole yujaahid fii sabiili illahi caza wajal khilaafata cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa la keenay siwaaraya kisra boqorkii kisra dowladdii furus maalintii sacd ibnu abi waqaas ciidankiisu maalintay dumiyeen ayaa cali bnu abi aalib iyo cumar oo meel fadhiya magaalada madiine dibaddeeda fadhiya ayaa la soo mariyey baqal baa lagu keenay gacmihii kisra kursigii kisra khasaa'intii kisra oo baqal lagu jiidayo markaasuu cumar bnu khadaab uu yaabo wuxuu yidhi yaa abalxasan ragga dahabka intaa la eg ka keenay furus ee noogu keenay madiine waa rag ammaano leh markaasuu abalxasan baa yidhi annaku iyaka la yaabi mayna buuhi waayo adiga ayaa dhowrsoonaado hantida ummadda ka dhowrsoonaadee haddii amiirku uunan hagaagin raciyadduna ma hagaagteene islaaxa aad ku arkaysa raciyaddaada adigay kaa bilaabato adiga ayaad karaamadaas gala buu ka yidhi cumarow madaxdiiba hagaagtay wallaahi suma wallaah horumarka ay gaadheen asxaaba muxamed calayhi salatu salaam lama gaadhi karayo taariikhdaas lama gaadhi karayo haddii cid kastoo timaada ma gaadhi karayso abubakar iyo cumar iyo saxaabadii rasuulka halkay gaadheen madaxdiisa cumar markuu talada u dhiibayo saddex baa kula dardaarmi jiray saddex aqaladiinna aqalada muslimiinta inay ka sarrayn ha la mid noqdaan albaabadiinu ha furnaadaan cuntada aad cunaysaan ha noqoto muslimiinta qoyska ugu daciifsan cuntaday cunayaan tiinula ha la mid noqoto buu jiray cumar bnu khadaab maantana innaka mar alli markii adduunyadu noo biirto gaadhigaan bedelaynaa oo gurigaan bedelaynaa oo mobeelkaan bedelaynaa oo hadalkaan bedelaynaa oo qayli markay lacagta u biirto ya allah ilaahu naastur